dhinaca kale agaasimaha fulinta komishanka xakamaynta HIV/AIDS ee Somaliland waxa uu tababaro furay shaqaalaha kala duwan ee ka howlgalaya xafiiskani cusub kuwaasi oo lagu tababaray hanaanka ay ugu adeegi doonaan dadka la nool xanuunka HIV/AIDS-ka iyo sidoo kale wacyigelin komishanku ka samayn doono deegaanada gobolka Togdheer. halkan waxaan ku furaynaa tababar loo qabtay shaqaalaha komishanka ee gobolka Togdheer tababarkaas oo khuseeya xirfadaha wacyigelinta iyo dhisidda awoodda shaqaalaha kaasoo la doonayo in shaqadii ay la dardargeliyo sida awgeed waa in xirfadooda la dhisaa shaqaalaha gobolka ka shaqeynaya. ugu dambeyn agaasimaha fulinta komishanka xakamaynta HIV/AIDS-ka ee Somaliland Axmed Cabdi Ismaaciil ayaa hadallo dardaaran u jeediyay shaqaalaha tababarka la siiyay. adeegga la inaga sugayo ee ah Somaliland qaranka dhan aynu u qaabilsanahay xakamaynta iyo daryeelka iyo daweynta iyo ka hortagga iyo wacyigelinta hawshu ma yara hawsha aynu u qaabilsanahayna inaynu roolkeeda iyo kaalinteeda aynu ka soo baxno. Shucayb Xasan Dheere, Home Cable TV, Burco. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland.